može bi rašibio na to što tоварищ Сталин умеет выполнить свой долг. Joseph Stalin oo ka mid ahaa madaxweynayaashii saameynta ugu badan ku lahaa dagaalkii labaad ee adduunka waxa uu dhashay 18 Disembar sanadkii 1878 gaar ahaan deegaanka Gori oo ku yaala dalka Georgia. Stalin waxa uu ku soo koray qoys danyar ah waxana uu ahaa ilmaha kaliya ee ay dhaleen labadiisa waalid. Aabihiis ayaa waxa uu ahaa kabatole iyo sakhraan garaaca wiilkiisa markasta oo khamriga cabo. yaraantiisii waxaa ku dhacay cudurka furuqa kaasi oo nabaro badan kaga tegay wajigiisa. intaas kadib waxa uu helay deeq waxbarasho oo ay siisay kaniisadda Orthodox-ka ee dalka Georgia. intii uu ku sugnaa kaniisadda waxa uu bilaabay akhrinta fikradihii uu qoray aabihii fikirkii hanti-wadaagga ee loo yaqaanay Vladimir Lenin. ugu dambeynna waxaa laga eriyay kaniisaddii sababo la xiriira in uu ka maqnaa imtixaanadii. markii uu ka tagay kaniisadda waxa uu noqday kiciye siyaasadeed kaasi oo dadweynaha ku booriya banaanbaxyo ka soo horjeeda dawladda. ugu dambeynna waxa uu ku biiray ururkii Bolshevika oo uu hogaaminayay Vladimir Lenin. Stalin waxa uu ka qayb qaatay falal dambiyeed lagaga soo horjeeday boqortooyadii Ruushka ee xilligaa talinaysay. dhowr jeer ayaa lagu xukumay xadhig iyo masaafurin intii u dhaxaysay sanadihii 1902 ilaa 1913 markaas oo loo masaafuriyay gobolka Siberia ee ku yaala dalka Ruushka. sanadkii 1912 Lenin oo tarxiil ku joogay dalka Switzerland waxa uu Stalin u magacaabay in uu ka mid noqdo golaha dhexe ee xisbiga Bolshevika. bishii Noofambar sanadkii 1917 xisbigii Bolshevik waxa ay la wareegeen guud ahaan gacan ku hayntii dalka Ruushka waxana ay aasaaseen midowgii Sofiyeetka sanadkii 1922. Lenin oo ahaa aasaasaha fikirka shuuciga ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyay ee midowgii Sofiyeeti. sanadkii 1922 Stalin waxa uu noqday xoghayaha guud ee xisbiga shuuciga. kadib markii sanadkii 1924 uu dhintay Lenin oo ahaa hogaamiyihii dalka waxa uu loolan weyni dhex maray madaxdii xisbiga waxana ugu dambeyn ku guuleystay Joseph Stalin oo halkaas ka bilaabay hayaankiisii kalitalisnimo ee midowgii Sofiyeeti. Stalin ayaa bilaabay qorshayaal ay ka mid ahaayeen in bulshada laga bedelo beeralayda loona bedelo warshadlayaal. qorshahan oo salka ku hayay in ay dawladdu maamusho dhammaan dhaqaalaha dalka oo ay ka mid ahaayeen gacan ku haynta wax soo saarka beeraha dalka. malaayiin beeralay ah ayaa ka hor yimid qorshahan waxana dhacday in beeralaydii qaarna la toogto qaybta kalena dalka laga saaro. qorshahan ayaa sababay macaluul baahsan oo galaafatay nolosha malaayiin dad ah. sidoo kale Stalin ayaa bilaabay gumaadka cid walba oo u arko in ay ka soo horjeedaan fikirka shuuciga waxana uu balaariyay awoodda ciidanka sirdoonka. sidoo kale muwaadiniinta ayaa waxa uu ku booriyay in ay isjaajuusaan. Stalin ayaa qabsaday dalka Ruushka iyaga oo ah beeralay waxana uu gaarsiiyay heer ay ka mid noqdaan dalalka ugu horumarsan caalamka. sanadkii 1939 xilligaas oo uu socday dagaalkii labaad ee adduunku waxa uu heshiis dhex maray Adolf Hitler oo ahaa hogaamiyihii Naaziga ee Jarmalka iyo Joseph Stalin. heshiiska oo dhigayay in aanay labada dal isku xadgudbin balse Jarmalka ayaa ka baxay heshiiska waxana uu dhaqdhaqaaq ka bilaabay soohdimihii labada dal. Stalin oo iska indhatirayay digniinaha ay sirdoonka dalkiisu uga soo gudbiyaan gulufka ay soo qaadayaan ciidamada Jarmalku waxa uu Stalin ku war helay bishii May sanadkii 1941 halista ciidamada Naaziga waxana halkaas ka qarxay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay Jarmalka iyo Sofiyeetka. natiijada ayaana noqotay in jab xoogan loo geysto ciidankii Naaziga ee Jarmalka. 26 August sanadkii 1949 waxa uu Stalin tijaabiyay bamkii ugu horreeyay ee nuclear ah. shantii Maarso sanadkii 1953 Stalin oo da'diisu ahayd 74 jir ayaa ku dhintay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. qisooyinka qosolka ah ee laga hayo Stalin ayaa waxaa ka mid ah in maalin maalmaha ka mid ah Stalin
oo fadhiya xafiiskiisa waxaa u soo galay mid ka mid ah la taliyayaashiisii, waxaana uu u sheegay inuu albaabka joogo nin sheeganaya inuu wax ka og yahay mustaqbalka, balse Stalin ayaa ugu jawaabay in la daldalo ninkaas. Sababtana waxa uu ku sheegay in haddii uu ninkani mustaqbalka wax ka og yahay, geeridiisa ma soo doonteen.